deeqdan gargaarka ah oo ka timid hay-adda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed isla markaana wakiil ah uga soo dhigatay maamulka degmada Balcad in la gaarsiiyo dadka danyarta iyo barakacayaasha ku nool degmada Balcad ayaa waxaa deeqdaasi loo qeybiyay 1334 qoysas oo isugu jira dad danyar ah iyo barakacayaasha ku nool degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. bixinta deeqdan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane xildhibaan Maxamuud Axmed Gacal iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed. waxaana madasha lagu bixinayay deeqdan gargaarka ah ka hadlay Axmed Maxamed Mahad Alle oo ka tirsan hay'adda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka qaranka iyo sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Hirshabeelle mudane xildhibaan Maxamuud Axmed Gacal. ama aan soo gaarsiinay degmada Balcad ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe gargaar aan ka wadnay hay'adda maareynta masiibooyinka taasoo aan soo gaarsiinay maamulka degmada dadkii loogu talagalay abaaraysnayna aan soo gaarsiinay gacantooda aan ku salinay gudoomiyaha maamulka degmada Balcad mudane Qaasim Cali Nuur Furdug oo ugu dambeyn ka hadlay madasha ayaa ka mahadceliyay deeqdan ka timid hay'adda maareynta iyo masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed. waxaan qaybinaynaa raashin macaawinaha oo naga soo gaaray hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee horkacayeen walaalaha idaaja iyo Ustaad Maxamed waxaa goobjoog nooga ah maanta oo aan mahad u celinayna xildhibaankeena Dr. Maxamuud Axmed Gacal ahna wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee Hirshabeelle waxaana soo gaartay deeq ay soo dhiibtay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka oo aan u malaynayo markii ugu horeysay tahay inuu wax marsiiyaan ay Balcad ku keeneen waxayna soo gaarsiiyeen 1334 qoys oo u dhiganta 40,000 oo tan 40 tan u dhiganto waan dadku waa fadhiisanay waa u qaybinay si cadaalad ah intii Ilaahay uu gaarsiiyay aanan awoodda u gaarsiiyaan u qaybinay waxaan ka codsanaynaa hay'adda maareynta iyo ergeyga gaarka ee u qaabishan madaxweynaha arrimaha abaaraha iyo fatahaadaha iyo madaxweynaha iyo wasaaradaha qaabishan iyo dowlad goboleedka Hirshabeellaba in wili ay dadka badan ay degmada joogaan oo dhibaataysan oo barakaca oo qaarkood colaado soo barakiciyeen qaarkood fatahaad soo barakiciyeen aynu ku filnayn wax maanta la keenay laakiin aan isleenahay maadaama bilaaw ah heshaan saa u qaybiseen laga arkay amnigeeda waa lagu hay'adda iyo dawladda way ka fikiri doontaa inay wax badan keento degmadan fatahaadaha iyo abaaraha colaado dadka soo barakiciyeen marka tir ahaan afka ku dhifano way dhaafayaan 27,000 qoys way dhaafayaan marka waa dareemi kartiin 1334 qoys inaysan wax ka biyo ay ka taraynin maanta ilaa saaka ilaa hadda dad kala celinaynay keenistooda iyo soo gelintooda iyo fadhiisintooda dhib ku qabnay waxaan mahad celinaynaa hay'adaha ciidamada qalabka sida xukuumadda ee aad noola shaqeeyay militariga nabad sugidda iyo booliiska degmada ka shaqeeyo ee ciidamada booliiska iyo daraawiishta Hirshabeelle ayagana garab xoog lana siiyay iyagana u mahad celinaynaa waxaan insha Allah rajaynaynaa bulshada reer Balcad si isugu duuban tahay inay marqaati ka yihiin wafdiga ka socda hay'adda. deeqdan ayaa qayb ka ah gurmadka ay dowladda federaalka Soomaaliya u sameynayso dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool degmooyinka iyo gobollada dalka. Axmed Socdaal, telefishinka caalamiga ah ee Hirshabeelle, degmada Balcad.